wacan akhyaarta hawada ee nagala xiriirtay meel kastoo aad inaga maqlaysaan waa duhurnimo sabtiga 19 bisha Oktoobar sanada 2019 arrimahan uu barnaamijka duhurnimo idinkugu haynana waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha Britain ugu baaqay xildhibaanada dalkiisa inay maanta u codeeyaan heshiiska uu dalkaas midowga Yurub uga baxayo buundo muhiim ah oo isku xirta gobolka ka tirsan deegaanka Soomaalida ee wadanka Itoobiya oo xalay gooday kadib roob xooggan oo halkaas ka dhacay baan ugu daayay markaas gariirkeeda baan u maqalay markay dhacday kolkaan tagnay wax baabuurtii waan joojinay labada dhinacba ilaa 200 oo baabuur ka badan baa taagan oo galbeed iyo hoosba ka timid jidkan dheer ee isku xidha goday ilaa Addis Ababa isla Itoobiyana madaxda deegaanada Soomaalida iyo Canfarta oo ku heshiiyay in la soo afjaro colaad ay dad badan ku dhinteen oo maalmahan halkaas ka socotay qodobada iyo kuwa kale oo Soomaalida caalamka ku saabsan ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan uu soo saaray Maxamed Cabdiraxmaan Sheekh anigu Iftaax Ibraahim Caaga yarna in la socodsiinay balse marka hore barnaamijka waxaan ku bilaabaynaa wararka caalamka iyo Cabdiraxmaan Xaaji Cadow mahadsanid Caaga ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa baarlamaanka dalkaasi horgeeyay qorshihiisa ku aadan ka bixitaanka midowga Yurub ra'iisul wasaare Johnson ayaa isku dayay inuu baarlamaanka dalkaasi ka dhaadhiciyo sidii ay u ansixin lahaayeen heshiiska ka bixitaanka midowga Yurub Mr Johnson wuxuu baarlamaanka u sheegay in la joogo xilligii heshiiska la meel marin lahaa si aan mar kale ayuu yidhi kalsoonideena u soo ceshano Let's go for a deal that can heal this country and can allow us all. aan meel marino heshiiska dalkan halkiisii ku soo celin kara inoona ogolaan kara in sida aan doonayno ee ugu habboon aan ula dhaqanno saaxiibadeen iyo dalalka kale ee deriska ee uu iskaashigu naga dhaxeeyo waa heshiis inoo sahli doona inaan abuurno fursado aan wax badan dalalkaas ku wadaagi karno waa heshiis sidoo kale inoo ogolaan doona in aan si ay kalsooni ku jirta u soo bandhigno dimuqraadiyaddeenna aanu shuruucdeenna u samaysanno mustaqbalkeena aynu go'aan kaga gaarno oo aynu mar kale rumaysanno inaannu nahay dad furfuran deeqsiyiina caalami ah horusocda leh ganacsi xor ah oo la yidhaah United Kingdom taasi waa waxa uu dalkayaga ka helayo heshiiska waa arrin weyn iyo heshiis weyn oo aan kula talinayo in aqalka uu meel mariyo And a great deal, and I commend it to the House. hogaamiyii hore ee falaagada South Sudan Riek Machar ayaa la filayaa inuu goordhow uu ka dego caasimadda Juba si uu qayb galo wadahadallada laga damacsan yahay in bisha soo socota lagu dhiso dowlad loo dhan yahay tani iyo markii heshiiska nabadda ay seexeen madaxweyne Salva Kiir iyo Riek Machar waxaa la gaadhay xogaha horumar ah balse dhaleecayn ayay kala kulmaan dhinaca beesha caalamka arrimaha ugu muhiimsan ee horyaala labada dhinac oo xalka u baahan ayaa waxay tahay labada ciidan ee kala taabacsan labada hogaamiye sidii loo qaramayn lahaa iyo dhisitaanka dowlad loo dhan yahay dad jimcihii lagu laayay masaajid ku yaala dalka Afghanistan ayaa maanta aas loo sameeyay jimcihii shalay ahaa ayaa 65 qof oo masaajid ku cibaadeysanayay lagu dilay qarax lala beegsaday masaajidka qarax lala beegsaday oo ku yaalay gobolka Nangarhar ee ka tirsan Afghanistan ma jirto ilaa iyo hadda cid sheegatay weerarkaasi ugu dambeyn ururka Xisbullah ayaa sheegay dhibaatooyinka dhaqaale ay shacabka Libnaan ka cabanayaan inay mas'uuliyaddeeda qaadaan dhammaan xisbiyada siyaasadeed ee dalkaasi ka jira kumanaan shacab ayaa isugu soo baxay caasimadda Beirut iyagoo ka cabanaya dhibaatooyinka dhaqaale ee dalkaasi soo food saaray waxayna mudaharaadayaashu ku dhawaaqayeen halku dhigyo ay ka mid yihiin xukuumadda xilka dalkaasi haysa casisho iyo xilabida waxaana halkaasi isku gacan qaaday shacabkii mudaharaadayay booliska rabshadaha ka hortaga warkii waa naga inta aad u mahadsan tahay Cabdiraxmaan Xaaji Cadow ayuu kaasi ahaa wararka caalamka la socodsiinaya halka kala socotaana waa BBC dhageystayaal u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka qodobada iyo kuwa kale oo Soomaalida caalamka ku saabsan ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan uu soo saaray Maxamed Cabdiraxmaan Sheekh anigu Iftaax Ibraahim Caaga yarna in la socodsiinay balse marka hore barnaamijka waxaan ku bilaabaynaa wararka caalamka iyo Cabdiraxmaan Xaaji Cadow mahadsanid Caaga ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa baarlamaanka dalkaasi horgeeyay qorshihiisa ku aadan ka bixitaanka midowga Yurub ra'iisul wasaare Johnson ayaa isku dayay inuu baarlamaanka dalkaasi ka dhaadhiciyo sidii ay u ansixin lahaayeen heshiiska ka bixitaanka midowga Yurub Mr Johnson wuxuu baarlamaanka u sheegay in la joogo xilligii heshiiska la meel marin lahaa si aan mar kale ayuu yidhi kalsoonideena u soo ceshano Let's go for a deal that can heal this country and can allow us all. aan meel marino heshiiska dalkan halkiisii ku soo celin kara inoona ogolaan kara in sida aan doonayno ee ugu habboon aan ula dhaqanno saaxiibadeen iyo dalalka kale ee deriska ee uu iskaashigu naga dhaxeeyo waa heshiis inoo sahli doona inaan abuurno fursado aan wax badan dalalkaas ku wadaagi karno waa heshiis sidoo kale inoo ogolaan doona in aan si ay kalsooni ku jirta u soo bandhigno dimuqraadiyaddeenna aanu shuruucdeenna u samaysanno
mustaqbalkiina aynu go'aan kaga gaarno oo aynu mar kale rumaysanno inaannu nahay dad furfuran deeqsiyiina caalami ah horusocda leh ganacsi xor ah oo la yidhaah united kingdom taasi waa waxa uu dalkayaga ka helayo heshiiska waa arrin weyn iyo heshiis weyn oo aan kula talinayo in aqalka uu meel mariyo hogaamiyihii hore ee fallaagada saudada suudaan rik maje ayaa la filayaa inuu goordhow uu ka dego caasimadda jubba si uu qayb galo wadahadallada laga damacsan yahay in bisha soo socota lagu dhiso dowlad loo dhan yahay tani iyo markii heshiiska nabadda ay seexeen madaxweyne salvakiir iyo rik maje waxaa la gaadhay xogaha horumar ah balse dhaleecayn ayay kala kulmaan dhinaca beesha caalamka arrimaha ugu muhiimsan ee horyaala labada dhinac oo xalka u baahan ayaa waxay tahay labada ciidan ee kala taabacsan labada hogaamiye sidii loo qaramayn lahaa iyo dhisitaanka dowlad loo dhan yahay dad jimcihii lagu laayay masaajid ku yaala dalka afghanistan ayaa maanta aas loo sameeyey jimcihii shalay ahaa ayaa 65 qof oo masaajid ku cibaadaysanayay lagu dilay qarax lala beegsaday masaajidka qarax lala beegsaday oo ku yaalay gobolka Nangahar ee ka tirsan Afghanistan ma jirto ilaa iyo hadda cid sheegatay weerarkaasi ugu dambeyn ururka xisbullah ayaa sheegay dhibaatooyinka dhaqaale ay shacabka Libnaan ka cabanayaan inay mas'uuliyaddeeda qaadaan dhammaan xisbiyada siyaasadeed ee dalkaasi ka jira kumanaan shacab ayaa isugu soo baxay caasimadda Beirut iyagoo ka cabanaya dhibaatooyinka dhaqaale ee dalkaasi soo food saaray waxayna mudaharaadayaashu ku dhawaaqayeen halku dhigyo ay ka mid yihiin xukuumadda xilka dalkaasi haysa casisho iyo xilabida waxaana halkaasi isku gacan qaaday shacabkii mudaharaadayay booliska rabshadaha ka hortaga warkii waa naga inta aad baad u mahadsan tahay cabdiraxmaan xaaji cadow ayuu kaasi ahaa wararka caalamka inala socodsiinaya halkaad kala socotaana waa b b c dhegeystayaal u diyaargarooba qaybaha kale ee barnaamijka aanu ku bilownaya sida aad warkaba ku maqlayseen ra-iisul wasaaraha britain boris johnson ayaa waxa uu codsi u diray xubnaha baarlamaanka dalkiisa si ay ugu codeeyaan heshiiska uu dalkaas uga saarayo midowda yurub isagoo heshiiska ku tilmaamay inuu yahay fursad taariikhi ah oo uu dalkaasi hore ugu qaadayo tallaabo kadib sannado badan oo kala qaybsanaana waxa uu xildhibaanada ugu baaqay in si wada jir ay u soo afjaraan khilaaf ka taagan waxauna dhan kale ka digay in la dalbado in wax laga bedelo heshiiska taas oo uu sheegay inay horseedi doonto dib u dhac isagoo heshiiskaas ku gacan sayray ayuu hogaamiyaha xisbiga leyborka jeremy corbin waxa uu yidhi midkan waxa uu ka xun yahayba midkii ka sii horreeyey haddaba mawlid xaaji cabdi ayaa arrintaasi kala socday magaalada london waxaan goordhaweyd weydiiyey faahfaahinta warkaasi cabdifatax waad mahadsan tahay horta waa markii ugu horreysay muddo 37 sano ah oo maalin sabti ah baarlamaankan uu fariistay UK markii ugu dambeysana waxay ahayd dagaalkii Falkland ee u dhaxeeyay Ingiriiska iyo Argentina oo maanta kale ay fariisteen doodan maanta waxay ku saabsan tahay in heshiiskii ra'iisul wasaare Boris Johnson uu la gaaray midowga Yurub baarlamaanku uu ka doodo oo markaasi ama ay ansixiyaan ama ay ku diidaan laakiin taa haddana waxaa hareer socota saddex kale oo markaasi shuruuc ama qawaaniin oo barbar socda kan ra'iisul wasaaraha oo haddii markaa midkood uu guuldareysto midkood kale laga yaabo in loo codeeyo ama kan ra'iisul wasaaraha loo codeeyo marka waxaa dhici doonta ilaa iyo 4 codeyn ra'iisul wasaaraha Boris Johnson wuu hadlay fadhigii baarlamaanka aad buu mataqaanaa kalsooni u muujiyey waxaana jirtay in uu aqalka ka codsaday in heshiiskan oo uu ku tilmaamay heshiis muhiim u ah Britain uu markaasi laga doonay inay ay ansixiyaan dood culus ayaa socota iminka waxaana u baahan yahay ra'iisul wasaaruhu 320 cod mar uu hadlayay waxa uu aad ugu tilmaamay heshiiska inuu yahay heshiis aad u muhiimsan oo weyn oo Britain dhinaca dhaqaalaha iyo xorriyadda qawaaniinta maxkamadaha iyo waliba awoodaha dhinaca ganacsiga oo adduunka kale ay kula macaamili karaan ay markaasi siinayso waxaana uu yiri a deal that can heal the rift in British politics waa heshiis meesha ka saari kala qaybsanaanta siyaasadeed ee dalkan isla markaana midayn kara waxa hadda loo baahan yahay ayaa ah in golahan uu maanta dalka mideeyo waxaan rumaysanahay in shacabka guryahooda maanta ku sugan ay wax badan naga filayaan people at home are hoping and expecting markii hadalkaasi uu dhameeyay ra'iisul wasaaruhu waxa isna hadlay hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha ee Labourka Jeremy Corbyn waxaana markaasi uu aad u weeraray heshiiska ra'iisul wasaaruhu la soo gaaray midowga Yurub oo uu ku tilmaamay inuu yahay heshiis xuquuq la'aan dhigaya ururka shaqaalaha oo ay ku jiraan 6 milyan oo qof waxaana hadaladiisa ka mid ah Jeremy Corbyn This deal
is not good for jobs, damaging for our industry. heshiiskan ma aha mid u wanaagsan shaqooyinka dalkan wuxuu dhaawacayaa warshadaheenna wuxuu khatar ku yahay deegaanka ma aha heshiis u wanaagsan dalkeenna iyadoo jiilasha mustaqbalka ay dareemi doonaan cawaaqibkiisa waa in aqalkan uu maanta diido heshiiskan kaasi wuxuu ahaa Jeremy Corbyn oo dhinaca mucaaradka hogaaminayay marka mawlidow mar haddii baarlamaankii haatan doodiisii ay si wanaagsan u soconayso ilaa galabta laga yaabo in go'aan uu soo baxo maxaa la filan karaa runtii aad iyo aad bay u adag tahay cabdifatax 650 xubnood oo baarlamaanka ayaa dhammaantood marka laga reebo 11 ay codayn doonaan laakiin ra'iisul wasaaraha xisbiga conservative-ka wuxuu haystaa 277 waxaa laga yaabaa in ay codeeyaan 12 ka tirsan xisbiga shaqaalaha oo taageersan in laga bax midowga Yurub waxa kale oo jirta 21 madax bannaan waxa ka soo horjeeda 218 xisbiga Labour-ka xisbiga SNP oo ka dhisan Scotland oo 35 xisbiga Liberal Democratic waa 19 DUP oo hore isbahaysi u lahaa dawladda ayaa iminka ka soo horjeeda waa xisbiga ka soo jeeda waqooyiga Ireland waa 10 xubnood waxa kale oo jirta 27 aan markaas go'aan kooda la ogeyn 27 kaas marka ayaa muhiim ah waxay u badan tahay ra'iisul wasaaruhu inuu heli doono 310 qolada ka soo horjeedana heli doonaan 302 laakiin 27 kaasi qolada ay u codayso ayay markaa noqon doontaa inay guush ay raacdo waa tahay kaasi waxa waa waryahayaga magaalada London Mawlid Xaaji Cabdi oo faafahinta warkaasi ina siinaya dhageystayaal wixii ka soo kordhana intaan idaacadda galabta ku guda jirnay waqtiga tabinta tooska ciyaaraha ayaa Mawlid iyo asxaabta kale la joogta waxa ay idin soo tabin doonaan wixii warkaasi ka soo kordha ee hawdayma la'aanina balse markan buundo aad muhiim u ah ayaa wax isku xirta gobolka ka tirsan deegaanka Soomaalida ee wadanka Itoobiya ayaa wax lagu soo waramayaa inay xalay gooday kadib roob xooggan oo halka ka daayay buundada oo marta deegaanka Sheykoosh ayaa hadda waxa uu xayiran baa leeyahay ilaa iyo 200 oo gaari kuwaas oo sida badeecooyin kala duwan iyo rakaab sida uu BBC-da u sheegay gudoomiyaha degmadaasi Ibrahim Sheekh Xasan Cagaweyne oo u waramay waryahayaga Jigjiga Cabdinaasir Sheekh Maxamed Xikam buundada waxay dhacday xalay 4 saac buundada waxaa sababay oo u go'day biyo aan caadi ahayn oo biyo mari jiray ka fara badan baa soo maray laagtii baa soo buux dhaaftay marka biyaha baa gooyay buundada wax cilado kale kuma iman sawirada ma muuqda biyo xoog badan baa buundada maray marka ma korkii hoostay ka mareen mise hoosta kale ka mareen hoosta kolka ka marayeen mayna goynaynin korkay ka mareen xalay wax ka horeeyay oo cilada mayna qabin biyihii baa intay buux dhaafiyeen oo dusha ka dhaceen yaa hareeraha say uga qodahayeen bay gebigeediiba dhulka dhigeen buundada go'itaankeedu wax khasaara oo naf iyo mooba roob baan ugu da'ayay markaas gariirkeeda un baan u maqalay markay dhacday kolkaan tagnay wax baabuurtii waan joojinay labada dhinacba ilaa 200 oo baabuur ka badan baa taagan oo galbeed iyo hoosba ka timid jidkan dheer ee isku xidha goday ilaa Addis Ababa ahmiyadda buundadan ee deegaanka u leedahay bal nooga warran bal buundada deegaankii dhanaa saaka isu socodkiisii wuu xidhan yahay meesha ay ku taalla dee waxaa weeye degmada Sheygoosh ee gobolka Qorraxay waa buundada isku xidhaysay Jigjiga ilaa goday ilaa Fayrfayr wax gaadiid oo saaka socdaa ma jiraan xagga hoos wixii ka yimidna wuu tuban yahay wixii kor ka yimidna waa tuban yahay isu socodkii gaadiidku waxa yaran yahay saaka marka see loo maareyn karaa oo ilaa hadda maxaad ka qabateen wax laga qaban karaa ma jiro biyihii baa sidii u socdaba annagu awooddanada annaga way ka baxsan tahay kulli xafiiskii ay khusaytay waa loo sheegay wuuna soo baxay marka ma isleedahay waxba laga qaban karaa xilliyadan dhow mustaqbalka dhow ha haddii ilaahay yidhaahdo xafiiskii jidadka wuu soo baxay heer deegaan iyo heer federaalba dhexdaa lagu soo jiraa sida ugu dhaqsaha badanna waa loo samayn haddii ilaahay yidhaahdo buundada hadday hadda sidan sii haato roobabkana ay sidan usii socdaan ma isleedahay deegaanku caadi ahaan buu u kala gu'i karaa ها وكلا قاعد دروك سيدا مسي صعود ما أنت كريه تابع الله دريمة هذا بابور تنتاجن سيريان ما ضدكم ميسكن نقونيان مساح أنت لقى سو قد بقى بنطلق لقلو سمرة بابور كلودني عكرة تاجن لصور راعية حاجة جديدة قفتي ربينو يمادو كل إذا شركة جديد كسيدا راحة بس يجعل يويود صعدان دكتا وحي قلبات كي من نكاس وتاجنها وحي حاجة نوص كي منه وتاجنها يويس لما الركاب ما يتبدلها مركال كاس على ودي الركاب لو كلا بدلها لكن واحد بعطدي وحمولكي يا معاشدي يا وحي بان يسوي واحد قاتين كراجين يا واحد مرينا
kaasi waxaa waa ibraahim sheekh xasan cagaweyne gudoomiyaha degmada sheekhookh oo u warramaya waryahayga cabdinaasir sheekh maxamed xikam bal facebookga markan aan eege dhegeystayaal marayguda kaga soo dhigtay xasan xuseen xasan waxuu joogaa magaalada cadaado waxuu leeyahay buundada golaha gobolada isku xirta deegaanka soomaalida waddanka etoobiya ee roobka uu jaray runtii waa musiibo nimco kastana waxa nuqsaanteeda ayay leedahay oo ay wadataa waxaan dowladda etoobiya iyo deegaankaba looga fadhiyaa inay dhisaan nimcaan jaamaca maxamed burcu kasoo qoray wuxuu leeyahay aad baan uga xumahay buundadaasi roobabku ay gooyeen ay isku xiraysay gobolada ka tirsan deegaanka soomaalida waddanka etoobiya maamulka deegaanka iyo kan federaalkaba waxaa looga baahan yahay inay si deg dega ugu gurmadaan shacabka dibna ay u dhisaan buundadaas waxaan qaar ka mid a dhegeystayaasha b b c ee facebook